السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكا أنا قد هانيسان وعنتي شو يعطي ميديا فضلا هدي أدنى اللي جوكتنا شي شرقري هدي كلام نقصو بير أو ما ركتها سبسكرايب كأي كومنتيجا نقصو بدي waxaan rabaa si degdeg ah inaan u dul maro halkee u socota kuraasta la boobayo ee golaha shacabka. waxaan ogeyn in golaha aqalka sare ee shuyuuqda ee 54 xubnooda in madaxda goboleedyada inay sidii doonaan ay ka yeesheen oo ay xubnaha sida ayadoo aan lagu watartaminba waxaan ognahay sidaas lamida waxaan ognahay 54 xubnood in looga tartamo kaliya 19 kursi kaliya inta kalena maaragtaa la soo watay wax loo yaqaan durwa utaag ama maaragtaa malxiis qof maaragtaa hadba markii tartanku uu soo dhawaado yiraahdo hebel ayaa u tanaasul nimanka la yiraahdo musharaxiinta midowga musharaxiinta ee fadhigooda ee Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera maanta waxay la kulmeen nimanka la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Roble. haddaba Ra'iisul Wasaare Roble muxuu ku soo kordhin karaa nimankaas damacooda ah inay xubno ka helaan golaha shacabka ayagoo marka hore lagu qadiyo ama ku qadayba golaha shuyuuqda ee aqalka sare. Ra'iisul Wasaare Roble muxuu la joogaa oo xubno ah oo maanta haysta waxyaalaha xanta hoos ah oo si degdeg ah oo la qiyaasi karo waxa kamid ah baarlamaanka ama xubnaha golaha shacabka ee lagu dooran doono Garbahaari oo awal u ahaa ballanka iyo kuwa lagu dooran lahaa magaalada Beledweyne in xamar loo soo wareejiyo si ay xubno ama ay ugu helaan activity dhaqdhaqaaq ay ugu helaan meesha la yiraahdo midowga musharaxiinta inay meelahaas ka kulmeystaan. sidaas la mid ah waa meesha ugu dhow ay maaragtay nimanka midowga musharaxiinta ay wax ka heli karaan. haddaba midowga musharaxiinta ma kala jabeen mase qayb ayaa ka maqan. waxaan ognahay in ayagu naftirkooda siyaasad ay ku wada joogaan gaar ahaan ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre waayahanba uu safar ku maqnaa iyagoo ka dalbado ka codsaday inay si degdeg wadanka u soo galo si uu fadhiyada iyo kulamada xasaasiga ay leeyihiin uga soo qayb galo asagoo maaragtay markaa cudurdaar ka bixinaya oo wali uusan imaan magaaladii Muqdisho ee laga sugay. waxaanse ognahay sidaas la mid ah golaha shacabka ay doorashadu hadda bilowga ay tahay inay nimankan ay ka cabanayeen in la boobayo halka Xasan Cali Khayrena oo intaad hambaliyo la daba taagnaa kursi walba soo baxa ama beedhabaha ka soo baxo ama Muqdisho lagu doorto ama meesha la yiraahdo lagu doorto Dhuusamareeb halka ayaguna cagsi ay ku hayeen ay cambaaraynayeen ay lahaayeen doorasho booba natiijadeedu ugu dambaysa ma aqbali doono. maaragtaa Ra'iisul Wasaare Roble waxaan maaragtaa waxba kuma soo kordhin karo oo sababtoo ah midda dabkeeda ma hayo maaragtaa nimanka midowga musharaxiintana qorshayaashooda dambe waa la socon doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.